بسم الله أما بعد إلهي سبحانه وتعالى أدون كان مكو أبوغي وحو أبوغي وحيتا هاي داد كلا دوان داد مدبضا كلا دوان فكر كودا كلا دوان قابك قفوال بأو فكريو waxaad arkaysaa waxay tahay dadka qaarkood waxay kuugu qasbayaan waxay tahay inaad aamintid aad u fakartid sida ayaga ay u fakarayaan lagama wado in haddii fakarkaaga aniga aanan qabin adiga aan ka soo horjeedo lagama wado haddaanan aaminsanayn waxa adiga aadan aaminsanayn in aniga aan qaldanahay bal haddii adiga aad dhahdid 5 ku dar 5 waa 10 asigana uu dhaho 6 ku dar 4 waa 10 ayadana ay dhahdo 7 ku dar 3 waa 10 idinkana aad dhahdaan 8 ku dar 2 waa 10 kulligeena waan saxsanahay laakiin si qof walba qaab ayuu u fakaraya qof walba qaab iyo si ayuu wax u arkaya lagama wadana in aniga aan qaldanahay adigana aad qaldan tahay dadka qaarkood haday ku khilaafaan oo fikirkaaga maahana fikir kale haday qaataan waxaad arkaysaa waxay tahay maanta oo adeeg ka hadlaya maanta oo wax bay ka sheegayaan maanta oo qofka dadka ay ka digayaan iyo wax la mid ah waxa soo dhan looma baahna al asl waxay tahay ilaahay uu leeyahay fa in tanaza'tum fi shay'in hadii shay aad isku khilaafdaan oo qof walba fikir adu shay uu ka aamino ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa u celiya يعني قرآن كي سنة ذا وحلا متى تاس وأصل كي وحلا يا وحتى تاس حتى إن فكرة كلا دوان قف بس وحوك حتى صحابة حتى وإس خلافين أيوة سداس وحالو بهاي هي وأصل كي إنما المؤمنون إقوى مؤمنين تا وولالو هدي oo hal shay asku khilaaf weynay 99 kale ayaa jirto aan isku waafaqsanahay oo hal mid aan nahay adduunka arrimihiisa waa isku khilaafaya qof walba si ay wax u arkaya laakiin asalkii ayaa loo baahan yahay in uu laabano oo ah qalbi furnaan iyo mu'minnimada iyo wix la mid ah saxaabada iyo culimada iyo xitaa imaam shaafici iyo culimada kale mas'aladan qaarkood isku khilaafi jireen iyo wix la mid ah waa caadi waa shay adduunka yani nolomaameedka ku saabsan laakiin asalka ayaa loo baahan qof u laabado oo ah إنما المؤمنون إخوة مؤمنين وولالو أو كل ذلك إن شاء الله تعالى الله يرزق بخير مكانة تهب الجمال برفعة الإيمان ومرام قد صنعت